كسروا بلتي في مقعة وكبلاو مركي حتى كسروا برامجك كلا دورة تلفزيونك بلا ودوها ما شاء الله مقعي ورضوان عبد الرحمن يوسف أما سنتا ولا الخالي ودوها مقعي وإنجنير هنا الشاعر أبوكر مصطفى سودو سؤالك ويدين دونا كده من كلا دورة شخصين دونتا سؤالك كود وحي كل هذا هاي إن النولاتو صاحب الآن إن النولاتو تلفون الآن متكي دورنسا runtii su'aashan waa su'aal aad iyo aad u adag waxaan door bidi lahaa inaan telefoon la'aan noolaado sababta ku doorato maxaa sababtoo ah mobilku waa shay tiknoolajiyada laakiin saaxiibku waa qofka mar walba macnaha haddii dhibaatada ku haysto kula qaybsanayo mobilku lama qaybsanayo dhibaatada ku haysto saas u dooran lahaa saaxiibka wallaahi hadda waqtigan lagu jiro waxaa waaye mobil iyo saaxiib waxaa laga maarmi karaa saaxiib لأنه صاحب كده الإسبانيين كرو موبايل كواي هذه ما العدل اللي تجيو سندون يو قادته وموبايل اللي يسيو ميلان إن قفته بكرة مركا صاحب موبايل مرو اللي بو موبايل عندهم لا waxaan dooranayaa horta inaan noolaado telefoon la'aan saaxiibkaygu waxa weeye kaba maarmo waayo mar kasta oo waqtiga maaragtay aan jaaniska hayo cidada qofku waa fikraya ma garad majority marka qofka saaxiibku waa loo baahan yahay mar kasta lagaba maarmo صاحبك أدي أدي لوجو بانيا وموبايلك ساكا قالسن سببت وكا قالسن يعني waxa weeye موبايلك waa wax yar oo leeli karo oo la sameyn karo laakiin saaxiibku waa qof dhan oo wax kugu soo kordhin kara fikrad موبايلك waqtiga la ka luminaya wax cilmi oo kale ka beelis yaa jeceshaa maalinta fasaxaaga inaad waqti la qaadato qoyskaaga iyo asxaabtaada waxaan jeclahay maalmaha fasaxa oo hubiyay ilaa inaan asxaabtay familkayga inaan la qaato sababtoo familka waa wax qaali ah marka family ku dhex jirtay iyo marka asxaab ku jirtay isku mid ma ahan waa jeclahay familkii mar badan inaan la qaato farxad qoys rareen inaan la qaato jeclahay walaal macaa runtii su'aashan aniga waxaan door bidi lahaa inaan qoyskii la soo qaato waayo familku waa laf dhabar waana meesha raaxada lagu dareemo dabcan waxaan door bidi lahaa inaan familkii la soo qaato waxaan jeclahay qoyskii in la qaato maxaa yeelay qoyska iyo asxaabta way kala duwan yihiin qoyskayga waa dad igu weyn oo ehelkayga oo dhalay oo soo barbaariyay marka waa laba kala yihiin marka qoyska igu weyn waayahay markan waxa kala doorataa inaad ku noolaato daqiiqad ceeb ah oo aad noolaato daqiiqad ceeb ah iyo inaad noolaato 10 daqiiqo oo murugo leh yaa dooranaysaa 10 daqiiqo oo murugo ah iyo 1 daqiiqo oo ceeb ah ونيو وحابة يرو 10 دقيقة مرقابة يرو نيو واي مرقابة ولا إلوبة أنت يرو كويس مارد وإلوبة سا عبت لك سواح فافت عبت هذا الفكذي لبده وين كرو ما قرأت هذا الفافي يا هذا بحال بين فكتيرون ما قاعد سماه سماه حكم ما يجري مركب معهم كلها صاحب سؤال شاس وان ساسا كلاه عبت رون أنتي وشيء أحن قفك شخصية دي سوحاوي هذا عيب ليه وحبة معه مرugta ayaan doorbidi lahaa laana qofka hadoo murugoonin ma ogaanayo nolosha waxay tahay marka ceebtu waxa ka miimsan murugta marka murugtaan dooran lahaa waxa door lahaa hal diiqo murug ku noolaa lahaa 10 daqiiqo muruga ma hal diiqo hal diiqo ceeb waxa liimo mama hore dhaaya jirto inta ku noolaa lahayd sidii sac oo kale u noolaa sidii libaaxi oo kale u guux jirto ma oraasas jirto marka taasad door laal diiqsa ku torto 10 daqiiqo murugo leh inaan ku noolaado aan door la sababtoo ah ceebtu waa wax xun oo aan fiicneen laakiin murugtu waxa waaye wax caadi ah oo ku dhaafayo biri ku dhaafayo dhamaanayo waxa sax ah